Asalaamu calaykum. Soo dhawaad. Haddii aad channelka cusub tahay, fadlan subscribe saar. Maanta insha Allah tacaala waxaan ka hadlaynaa sideen 4 saac oo xiriir ah maalintii aan wax ku bartaa. Runtii dadka qaar markii ay dhahaan 4 saac inuu qof wax barto way adag tahay runtii. Dadka qaar aad ay u adag tahay. Laakiin haddii aad in badan muraajaceysid oo wax badan akhrisid waa easy agtaada. So inta u gudagelin marka waxaa rabaa inaad ogaato hal mid. Haddii aad rabtid marka inaad baratid maalintii 4 saac ka mid ah wax kow waa inay ahaada waxa baranaysid waxa adiga aad jeceshahay. Tusaale ahaan aniga hadda waxaan ahay arday micnaha waxaan nimay caafimaad ayaan bartay. So waxa akhrinayo marka waa inay ahaadaan waxyaabo aan jeclahay sida caafimaadka oo kale. Haddii aad tahay computer nin baranayo, haddii aad tahay engineering qof baranayo, micnaha waa inay ahaadaan waxyaabo baranaysid waxyaabo ku quseeyo oo aad ka miro dhali kartid. Aan usoo gudagalna marka qodobadayna. Lambar koowaad wuxuu noqon doonaa qorshay waxaa rabtid inaad baratid maalintaas. Qoro, warqad ku qoro waxaa rabtid maalintaas inaad baratid, qorsheyso. Tusaale ahaan aniga waxaan sameeyaa waxaan qortaa waxa aan rabo maalintaas inaan akhriyo. Waxaan u kala qoraa sida u kala muhiimsan yihiin. Okay? As a chronologically wax la yiraahdo. Sida u kala muhiimsan yihiin ayaan u samaystaa. Kadib waxaan sameeyaa marka waxaan u akhriyaa sida u kala muhiimsan yihiin. Because waxa rabo inaan akhriyo way kala muhiimsan yihiin, wayna kala fiican yihiin. So marka waxaan ka bilaabaa marka waxyaabaha igu muhiimsan ayaan ka bilaabaa oo waqti aan siiyaa. Waxyaabaha igu dambeeyana waxaan siiyaa waxyaabaha xoogaa yar muhiim ah laakiin kuwa hore oo kale igu muhiimsaneen. Midda kale waxaa jira marka waxyaabo kaa caawinayo inaad ku socotid istiraatiijiyadaas. Tusaale ahaan waa inaad ka fogaataa mobilkaaga. Waxaan u hadalnay cashar hadda video hore aan soo dhigin oo la yiraahdo study plan oo ah sideen qorshe ku degsan karaa. Haddaa videos daawanin please daawo videogaas. Waxaan u hadalnay mobilkaaga sida ugu fogaan kartid. Okay? Markaa rabtid marka inaad wax akhrisid mobilkaaga laga fogaadaa. Ani waxaan sameeyaa mobilkayga meel ayaan dhigaa, waa xiraa. Markii aan waxaa jira wax la yiraahdo break. Okay? Markii aan akhrinayo waxaan qaataa break ayaan qaataa. Breakaas markaan soo qaato ayaan mobilkayga u soo laabtaa. Because waa ognahay mobilka laga maarmo. Waxaa u baahan tahay xoogaa inaad mar qaarkood refreshment aad sameysid, mobilkaaga aad fiirisid. Waxaa laga yaabaa in news qaar ku soo dhacaan. So marka break ayaan qaataa, then mobilkayga ayaan markaas u tagaa waxaa ku soo maxaa la yiraahdaa nafisa, then waan soo laabtaa. Sidoo kale inaad qaadatid break ama time oo ku soo nastid muhiim waay. Because maanta dhan inaad wax akhrisid 4 saac aad ay u adag tahay. So marka 10 daqiiqo camal break qaado, soo naso, soo laabo kadib. Okay? Sidoo kale waa inaad ka fogaataa inaad wax ku akhrisid TV hortiisa iyo sidoo kale sariirtaada. Arday qaar waxay sameynayaan sariirtooda tagayaan cashir qaar ku akhrinayaan way caajisayaan isla markii ay wajiifay arkayaan. Markay soo kacaan waxay dhahaaniyo maxaa igu dhacay. Because surgery wuxuu keenaa qofka inuu daal dareemo oo maxaa la yiraahdaa wax loogu talagalay wuxuu yaabay in relaxation uu sameeyo lagu nasto. So marka waa inaad ka fogaataa. Sidoo kale waxaa adeegsadaa wax la yiraahdo calendar. Calendarkaas marka wuxuu iga caawiyaa in aan waqtiga wuxuu ii sheegaa aan bilaabay cashirkayga waqtiga la gaaray. Waqtiga markii la gaaro oo ii sheega xudaa ay waqtiga la gaaray markaas aan bilaabaa. Sidoo kale wuxuu ii sheegaa waqtiga aan dhameynayo maadadaas. Oo ku xisaabtama okay waa save gareysanaa meena waqtiga save gareysanaa. So marka muhiim waay in waxyaas dhan isticmaashid. Cashirka oo qorshaha balaanka ayaan ugu soo hadalnaa. So marka haddii aad marka rabtid 4 saac oo xiriir inaad baratid waa inaad raacdaa hadda istiraatiijiyada aan soo sheegnay. Okay? Waa muhiim inaad raacdaa istiraatiijiyada aan soo sheegnay. Sidoo kale waa inaad fiirsataa video hore aan soo dhignay. Because videogaas aad ayuu ku hagayaa waxyaabo badan aad ka fahmi doontaa. So waxaan rajeynayaa in insha Allah taala ah badan faa'iiday. So inta ku kulmi doono next video. Thank you so much.